السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الداود soo dhawaada waa mar kale iyo walaalkeen aadan karaama halka aad iga daawanaysaan oo bartan YouTube-ka ku leeyahay aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe inoo saar isla markaana riix gambaleelka cas si ay ku soo gaaraan muuqaalada kala duwan ee xiisaha leh aan halkan ku soo gudbino haddaad horey noola joogtay madaxaad inoo saaran tahay soo dhawow muuqaalka like ku sii qabo isla markaana maanta su'aasha aan idin wado ah mid cajiiba ayaa la rabaa inaad kaga soo jawaabto barta commentiga wixii aad horey u taqaanay kadib markaad ogaato hadeer waxa la dhaho rasmiyan waa muuqaal cajiiba waa shacabka magaalada Hargeysa oo markaasi su'aal lala dhex qaaday oo dabadeedna la waayay qof kaliya oo ka jawaaba hadda ogoobay shacabka reer waqooyiga dhulka la yiraahdo gaar ahaan Hargeysa Burco dhulkaas waa dadka af Soomaaliga lagu tuhmayay inay aad ugu fiican yihiin isla markaana lahjadooda ay tahay waliba mid safeexa sidaas ay tahay su'aal la weydiiyay ayay maxaan ku sheegayay dadka reer Hargeysa oo dhan ku rafteen isla markaana ay soo saari waayeen adiga laftigaagu haddii aad horey u taqaanay markaad jawaabta ogaato waad noo sheegi doontaa maxaan ku sheegay mana filayo dadka dhalinyarada ah ee badanaa badee social media han daawanaya ama muuqaalkan u soo gudbinayo inay hore u yaqaaniin run ahaantii su'aashan la weydiiyay jawaabteeda bal marka hore aan idin kala baxo dadka reer Hargeysa iyo wariyahan waxa kala qabsaday kadib markii uu weydiiyay su'aashan anigu markii aan imika su'aasha aad weydiisad waliba xiina qraf la igu qabatay markaan maskaxdayda ka soo saaro waa daweey cayshuuni maxaad kula baxday shumbad kula bixleen kasan kurshun waacay markaas ay ugu tirmaahane waa amaan markaa kulleen afkayga Soomaali waa yara safeex waana afta yara furfuran laakiin afafka kale aan fahmi waayay waxa uu yara badan yihiin Soomaalida galbeed buu yara badan yahay kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka afka Soomaaliga ah ee Somali TV ka baxa ka soo daawataan jimco kasta hadaba barnaamijkan weydiinta aynu weydiinaynay shacbiga magaalada Hargeysa qaar ku dhaqan af Soomaali maxaa lagu dhahdaa dhakhtar ayaa kamid ah ereyada inta u badan la falgalay afka Soomaaliga ah kaasi oo dhalinyaradan dambe iyo waliba sidoo kale shiilalkii dhexe laftarkoodu aanay wax erey bixin u hayn hadaba wada sheekaysiina dhaxmaray aniga iyo bulshada ayaa ahaa sidan caashay bal hadda luqadda af Soomaaliga iyo suugaanteeda iyo waliba erey bixinaheeda say isku tiin waa isku yara wacnaay saas ma laakiin way hadaba inta badan dhakhtar wad maqashaa Soomaa hadaba dhakhtar maxaa lagu dhaaf Soomaali ma aqaano ma taqaan bal hadaba way haye maxaa adigu bal dhalinyarada aad u soo jeedin lahayd inay sidee u bartaan luqadda Soomaaliga dhalinyarta waxa bari kara af Soomaaliga waalidka hadduu wax uu yaqaano oo baro oo kula hadlo luqadda Soomaaliga way baranayaan laakiin luqadda dadka kale luqadooda da isticmaalaan carruurta ma baranayaan waxba waayahay bal adigu weli ma dhacday inaad qof af Soomaali kugula hadlaya oo dadkeenii waaweynaaya oo si kale u fahamtay way dhacday mar baa jirtay nala wadaag magacayga waxa oran jiray inta badan asxaabta ugu yar jirtay cayshuuni markaas islaam baa maalin ugu tiri cayshuuni maxaad kula baxday shumbad kula bixleen kasan kurshun waacay markaas ay ugu tirmaahane waa amaan marka intii waxoogaa aan si ku yar cogdadooday aad ma santahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Qaalib Cabdiraxmaan Cismaanow bal hadda luqadda Soomaaliga ah iyo erey bixinaheeda say isku tiin runtii anigu da'weyna ma ihi da'yarna ma ihi meel dhaxaan ahay dadkii horena waa soo yar gaadhay dadkan dambena waan la joogaa kolley dadka midhalka ahun baan hoo dhexdhexaad baan ku ahay laakiin kolley dee waa laygaga fiican yahay sidaan qabo way hadaba bal dhakhtar inta badan ma aha luqad Soomaaliya balse waa af la dhex galay afafkeena kale bal hadda maxaa lagu dhahdaa af Soomaali dhakhtar anigu markii aan imika su'aasha aad weydiisad waliba xiina qraf la igu qabatay markaan maskaxdayda ka soo saaro waa daweey hadaba maaha waad garan weyday bal adiga iyo qof kale oo aad isfahmi weydeen oo dhalinyarada dambe ah ama dadkii hore ah ma jirtaa way dhacday gurigayga gudihiisa bay ka dhacday bal nooga sheekadaada sheekadaan kaaga sheekaynaya waxa weeye annaga oo guriga la joogo oo idaacadda ay heese ka baxayso ayaa kelmadda saranseer ay heestii ku soo darsantay dabadeedna inankii walaalkay ag fadhiyay baa igu yidhi walaal saranseer waa maxay
markaasaan ku yidhi walaal miyaanad saranseer garanayn markaasuu igu yidhi mee walaal saranseer garan maayo markaasaan yidhi walaal saranseer waa rafaad saasaan ugu sheegay marka waxaad mooddaa dhallinyarta inta dambe inaanay aqoonba dhaqankeennii iyo afkeennii magacayga walaal waxaa la dhahaa aadan cabdi cali cabdalle waxaan ku noolahay caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa waanad mahadsantay walaal bal haddii aan iminka ku weydiiniyo su'aal dhakhtar inta badan waad maqashaa soo maa haa dhakhtar maaha soomaali walaal dhakhtar soomaali maaha laakiin af soomaali wuxuu ku noqonayaa markaan ra'yigayga qiyaaso waa dhiryaqaan dhiryaqaan haa ma aha balse bal adiga iyo weli qof kale oo weli aad isfahmi weydeen aad isku fahmi weydeen luqaddii aad ku hadlaysay weli ma jirto weli ma dhacday haa walaal dad badan aad isfahmi weyne way jiraan kolley qofba meeluu luuqadu kala yimaadaa anigu waxaan u dhashay gobolka togdheer horta walaal markaa kolley afkayga soomaali waa yaro safeex waana af dee yaro furfuran laakiin afafka kale aan fahmi waaye waxa u yaro badan yihiin soomaalida galbeed buu yaro badan yihin walaal bal weli qof aad isfahmi weydeen haddaba ereyadiina dhex maray bal hadda wax nooga sheeg walaal ereyadiina dhex maray kuwii aan fahmi waayey waxaa ka mid ahaa kolley haddeer maxaan qabanaya qof igu yidhi anigu iminka maxaan qabanayaa oo kale ahayd taasoo kalea igu yarayaa badneed walaal haddeer maxaan qabanayaa oo kale igu yarayaa badneed maxaad adu moodday markaa waxaan waday shaqaan ku jiray walaal maxaad moodday adigu inuu kugu yidhi waxaan moodayey inuu igu yidhi goortan maxaad qabanaysaa markaa waqtiguu ka hadlayay aniguna waxaan ka hadlaayey hawl magacay waa muuse saleebaan muuse saleebaanow bal hadda adiga iyo barashada afka soomaaliga amaba erey bixinaha af soomaaliga siday isku tihin sida runtii iminka dhaqanno kalaa baynu soo galo aad baan isugu yarna laakiin waxyaabahan ka garanayana way jirtaa badana waaye haddaba bal dhakhtar maxaa lagu dhahdaa af soomaaliga dhakhtar waxaa lagu yidhaha dabiibe ama sanceeye sanca dee waaba luuqad kaloo waa carabiya bal waxaad ii sheegtaa hadda adiga iyo bal qof kale oo weli isku mandhaafay hadal as tidhaahdeen isagoo soomaali qofkaas kula hadlayo si ka yaroo kale aad u qaatay weli ma dhacday way dhici kartaa laakiin iminka waxba kama xasuusto dee badanaa way dhici kartaa ma jirin hal qof oo gartay maanta weydiinteennii ahayd af soomaali maxaa lagu yidhaahdaa dhakhtar haddaba af soomaali ayaa lagu dhahdaa dhakhtar dacarfaal waana erey inta badan ay yaqaanaan oo ay garanayaan oo keliya dadkii hore oo keliya waa tahay daawadayaal waxaan filayaa kelmadda dacarfaal oo ah runtii kelmadda soomaaligii caadiga ahaa ee garaamarka ee soomaaliga saxda ah ee loo yaqaano dhakhtar maxaan kuu sheegayey in aad maanta qaamuuskaaga af soomaaliga ku darsatay maanta kadib haddii lagu yidhaahdo dhakhtar maxaa lagu dhahaa af soomaali waxaad leedahay dacarfaal ama dacarfaale runtii waxaan rajaynayaa in ay faa'iido u noqon doonto dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo u baahan inay af soomaaligooda kor u soo qaadaan waa walaalkiina aadan karaamo idinka codsanaya inaad sabskribe u saartaan islamarkaana riixa gambaleelka cas si aad u noqoto qofka ugu horreeya ay soo gaadhaan muuqaalada xiisaha leh ee aan bartan kusoo gudbinno haddii aad horey inoola joogtay madaxaad inoo saaran tahay aad iyo aad badna u mahadsan tahay tan iyo muuqaalka mid lamida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu